waqti wanaagsan asxaabta xilli kasta intahay soo dhawaada magacay waa Mahad Nuure Axmed caaway waxaan halkan ku daafuraynaa ama aan xariga uga jaraynaa YouTube cusub oo aan samaystay waa Mahad Nuure Vlogs dabcan daafurka YouTube-ka caaway marti ayaa igala qayb gali doonto qayb way ag fadhiyaan qayb muuqaaladii ay noo duubayaan dhammaantood u mahad celinaynaa walaashay dhaqankaaba ayaa dhinaciga fadhiso caaway ila daafuraysa YouTube-ka ubax soo dhawow aad iyo aad baa u mahadsantahay walaalkay Mahad sidoo walaal Mahad idin sheegay horta Mahad hadda iskiin baro Mahad waa kaameramanka muuqaalo badan oo aragteen oo aan soo gudbiyo gaar ahaan muuqaaladii ugu dambeeyay marka ugu horeysa waxaan leeyahay dadka reer dhaqankaaba iyo asxaabtaba waan salaamaya soo dhawaada halkan iyaduna waa minankiina waaye saa magaca inta ugu dambaysa ka aragtaan vlogyada iyo wadankeena quruxdiisa iyo waliba intaba taariikhaha wadankeena intaba waad kala socon doontaan haddii Allah awood la idmo marka walaalkay horta waan ku dhawahay walaalaha kale waxaan leeyahay soo dhawaada intay garanaysaa way garanayaan intay garanayna waxaan ahay gabar daadiyaha ka soo waranta masha Allah soo dhawaada aad u mahadsantahay wax dhaqankaaba dabcan YouTube-kan waxyaabo badan ayaa idinku soo gudbi doonaa oo marba aan u aragno wax idin xiiso geliyo deegaano kala duwan oo booqan doonaa sida qorsheenu yahay warbixino dokumentiyo kale oo inkugu talagalnay oo marba maaragtay waaqiga xilligaas taagan la jaan qaadaya ayaa inkugu soo gudbi doonaa asxaabta waxaan rajeynayaa inaad si qurux badan noo soo dhaweysiin ubax caaway dabcan waa markii ugu horeysay oo YouTube aan daahfuranayo bal maadaama adiga asxaab badan ku leedahay baadiyahan aad nooga soo waranto oo aniga laftigay dadka kugu xirnaa aan qayb ka ahaan jiray maxaa leedahay caawa bal soo dhawow haddii aad wax yar noo sharaxdid dhaqankaaba ay dadku ku yaqaanaan gabar miyiga ka soo waranto dadka inta badan magaalada ay ka waramaan ka sheekeeyaan laakiin adiga waxa u bareertay inaad maaragtay baadiyaha adkaa xaaladiisa lala socdo dadka qaar magaalooyinka jooga looga sheekeeyo inay tahay meel aad u dhib badan bal caqabadaha aad kala kulantay iyo waxyaabaha maaragtay kugu dhiirigeliyay soo dhawow waa mahadsantahay walaalkay Mahad Nuure iyo waliba asxaabta horta ugu horreyn waxaan leeyahay YouTube-ka Mahad ku soo dhawow YouTube-ka maadaama YouTube-ka aan kaaga soo reeyay oo kugu soo dhaweynayaa walaalahan waxaan leeyahay soo dhaweeyo sida aniga ii soo dhaweyseen u soo dhaweeya walaalkeen insha Allah waad arki doontaan wax badan oo maxay tahay tayo leh oo maxay tahay dadka anfaca anaguna sida aniga iga barateen oo kale wax marka dadka anfacaya ama cajabinaya ama dadku YouTube-ka qofba si uu ku soo galaa marka insha Allah waxyaabo dadka anfacaya sida iga barateen isagana waad uga baran doontaan marka waxaan leeyahay walaalka soo dhaweeya subscribe-ka u saara gambalelka hala furto إن شاء الله إذن كنا ده وده وحكي سيدنا في إنه هالكن لسوق إن شاء الله ده كله وحكوري لذي مش شيء واللي برا دقن كابا سيجارة هوش ودوية ويلكا إن شاء الله سجونا كاميرمان كي أو حبا عاوية وأنا ولالكي يعني فملكا أنت أكيد ولالكي أنا دان جيب قصة الله يعني سؤالها جهرت أنا وحنا هاي جواد عبادية كصور أنت هاي توي ميلا بدن تكتا مركي جهرنا قبر بادية أنا ها ضد كنا بادية ويكون ذي مادين ولا شكل الريمة هنا إن بديها ولا يوضي يمين حتى قفن كمان أبوي والدكي أيدي والدكي باكي يمد مركا أنا كمركا هرنا بديها أنا ها لكن سنة بدن كدي بديه عن مقالة شوقي أيان دي بقول أبتي وحنا يقول الرجلي حيتها إن عندك وشو بدبيه بلنلاش يسبدل كقيمة يعني ضد بلاقي لبعتين سنة صدق سنة كارين يقدم بيسي marka maxaa isbedelay nolosha xilligan iyo xilligaas marka si dadku u ogaadaan isbedelkaas nolosha bariga hore wixii jiri jiray iyo casrigan maanta 2021 la marayo ayaa igu kaliftay dadka inaan tuso sidii u nool yihiin dadku waxay haystaan horta taas ay igu kaliftay ma sha Allah ilaahina uu ii suurta geliyay inaan tago meelo badan aan maro meelo badan way ii dhimi yihiin markaana aan ka soo waramo meelaha iyo sida marka dadku ay u nool yihiin watahay dabcan dhaqanka ayaa ka hadasha magac waxa sidataa dhaqankaabo waan dareemi karnaa duruufyo adag ayaa jiro oo miyiga oo kale caqabado dadkii oo wixii aan fahansanay social media muuqaal marka ka duwayso kale sameynta warbixinada kale maadaama laga yaabo in internet jirin qalabyadii kale oo ka caawin lahaa koronto aan loo hayn sidee ugu dhiiratay bal habkaas hada sharaxaad yar oo kooban naga siisay walaalkay horta maado wallahi wax walba marka la qabanayo caqabado iska yeelanayaan wax bila caqabada adduunka ma jiraan laakiin tanuna mid caqabadeedu badan tahay marka sida sheegtay dhanka internetka caqabada ugu weyn ay haystay waayo
anigu ma sameeyeen inta muuqaal soo duubo magaalo ma soo laabaneen muddo adiga hadda adiga bilooyin badan oo hal sano ku dhow ayaan miyiga joogay intaas oo dhan waa dareemi kartaa halkaan wax ku soo gudbinayay waxay ahayd miyigii anigoo dhex jooga ayaan wax ku soo gudbinayay meelaha qaar internetka muu shaqeyneen meelaha qaar si daciif ku shaqeynaya meelaha qaar waxa laga yaabaa internetka maalmo badan inuu ugu qaato muuqaalka intaas inuu soconayay marka horta caqabada ugu badan internetkaas ay ahayd caqabadahana waan u bareeray waayo shaqadan markii hore aan dooranayay waxay ahayd shaqo adag marka waan u bareeray inay wax walba aan kala kulmo mid dadkana maasha Allah dad badan way soo dhaweeyeen waxyaabaha marka aan sameynayo oo maxay tahay inay marka ii fududeeyaan dabcan dadka waxa su'aasha ugu badan ay qabaan way dad reemiya sidee u ogolaanayaan inaad duubto ama kaamiro ama runtii waxaan dhihi karaa waxyaabaha anoo ammaaniga dhaqan wanaaga markay noqoto dadka reemiga ee magaalada aniga miyigaanba maasha Allah ila wanaagsan waayo marka xoga soo baahato waxa si walba u culus yihiin ama si walba u adag yihiin way kugu ixtiraamayaan waa laga yaabaa dadka qaar inay ku dhahaan hay'ad miyaa tahay waxaan maxaad ku helaysaa laakiin markaad u sheegto dhahdo may waxaan hay'ad aniga miyihi waxaan doonaynaa dhaqankeena aan jecelnahay dad baa jira magaalo ku nool oo weligood arkin inaan tusaan rabaa way ku qancayaan isla markiiba marka taasna caqabad igama imaan alxamdulillah dadka reemiga oo dad aad u qalbi wanaagsan waa dad runtii shaqadeeda sii jecleysay waayo haddii ayaga markaan u tago yani halka aan adag igu noqoleed inaan wax ka duubo ama wax ka gudbiyo waxa imayso suurtagal lahayn anigana niijab bay igu noqon lahayd laakiin iyagu wax walba maasha Allah way ii fududeeyeen laga yaabo xitaa marka qaar aroosadoo kale markaan tago dabcan markuu aroos meel ka jiro dad baa magaalada ka imaanaya miyiga waa la imaanaya dadka dhan dadka marka aan qabada kala kulmo waxay ahayn dadka magaalada ka yimid marka dhaaya kaamirada ma doonayno waxa dhaaya laakiin dadka miyiga hadii yani weydiiyaan ama matalan qofka ugu fog ku weydiinaya maxay tahay waxaan aad duubayso markaan u sharaxo isla markii uu ku qancaya waa tahay dabcan miyigii waa ka soo warantaa 2021 waxyaabaha aad naga xasuusi karto maadaama dhaqanka aad ka waranto xilligii hore iyo hadda farqi nooc ah ayaa u dhaxeeya maxaa si isbedel la dhihi karaa wax badan baa isbedelay wax badan markii laga hadlayo xitaa aniga waqtigeygii aan soo barbaariyay aan yaraa iyo maantay wax badan baa isbedelay haddii ahaale tiknoolajiyadan waxaan la isticmaalaya telefoonada leh internetka leh maxay tahay cuntooyinka kale marka wax badan baa isbedelay waxa jiro in baadiye markay taa socdaal la gelayo safarro kale maadaama deegaano kala duwan aad tagtid maamulo kala duwan yaa ka caawiyo socdaaladaas oo kale iyo safarkiisa aad bulshada maaragtay waxyaabaha aad ka sheekaysaa ugu soo bandhigtay caawimaad yani dhanka qarashka ku saabsan waa maasanta walaalkay horta wax walba waxa weeye isxilqaan wax la yiraahdo ayaa jira marka aniga barnaamijka markaa qabanayay inkastoo horta YouTube-ka laftigiisa uu dhaqaale leeyahay cid walba ay ogtahay haddana xaqiiqatan anigu markaan barnaamijka bilaabay YouTube-kayga dhaqaale muusan lahayn marka anaa ismaal gelinayay aniga qarash bixinay waliba qarash aad u badan markaa socoto ama meelaha qaar diyaarada aad u raacdo gawaari aad u raacdo meelaha qaar aad xitaa gaari kireysanaysid kaligaa qaas ah aad markaad meel u baxayso waxaasoo dhan qarashkaasoo dhan aniga isku maalgelinayay hadda iyo mar walbaba waxa weeye anaa isku maalgeliya mana ahayn runtii shaqo aan ka doonayo qof inuu igu taakuleeyo ama uu maxay tahay dad aan garab uga raashido laakiin waxay ahayd mid anigu isku xilqaamay sidaasoo tahay ma hado anigu isku xilqaamay aniga isku tashanay wallahi cidna aan waxba ka filin waxaa jira walaalaha YouTube-kayga ku xiran iyo walaal kale oo halkaan ka xusay Cumar Inshaar la dhaho inay waqtiga markaa barnaamijyada aan bilaabay agteeda iyagu garab weyn i siiyeen garabkaana ma la iloobi karo walaalaha garabka i siiyay taa kula dhaqaale iyo wax badan igu caawiyay iyakana waxaan dhihi karaa runtii inta aniga aan ogahay kale anigu weli ma arkin qofka kaliya waxaan ahaba YouTuber oo dadkiisa ka helay caawimaad aad baan ugu mahadcelinaya walaalaha qaaliga marka haddana aniga markasta aniga markaa isku tashto marka ama ismaal geliya waa tahay dabcan deegaano kala duwan ayaa tagtaa inta badan bulshada Soomaaliyeed waa isku dhaqan balse waxaa jira xoogaa kala duwanaansho u dhaxeeya marka deegaankaas tagtid ma nootin ama qoraal ku saabsanaa oo wax adiga ku soo tala gashay inaad soo bandhigta ayaa soo gudbisaa mise xog wareysi kadib oo bulshada deegaanka la sameeyay
waxyaabaha ay dhaqanka u leeyihiin ayaa jecesha inaad soo gudbisay. horta Soomaalidu meel kasta degto waa isku dhaqan lahjadaha waxyaabaha qaar magac ahaan lahjadaha waxyaabaha qaar oo lagu kala duwanaa karaa laakiin dhaqanka Soomaalidu waa mid Soomaalidu laga yaabo inay maamul kala leedahay inay si kala tahay inay waxyaabaha qaar ay ku kala duwan yihiin laakiin dhaqanka marka inta maray gobolo badan maray kuwa badan oo dhimayeen dhaqanka Soomaalida boqolkiiba 95 ama 98 hadaan gaarsiiyo way ka midaysan yihiin laakiin waxa jira shay yani lahjad lagu kala duwan yahay marka shaygaas baan soo yara bandhigaa iraahdaa kan waxa loo yaqaanaa kan waxa kale loo yaqaanaa laakiin dhaqanka Soomaalida waa isla dhaqankii mar walba dadka dhan waa wada reer guuraa waa isla wada dhaqankii waa tahay dabcan inta badan dadka dhaqankaaba ay ku yaqaanaan miyigana waa nooga soo warantaa maxaa intaas noogu dari lahayd information dhanka ku saabsan waxaan ku daraa miyiga wax iga weydiiya waxaan miyiga ku saabsan ama baadiyaha cidna ma hayo dabcan reer magaal iyo reer miyi intii waa isku tahay maadaama aad nooga soo waranto ma jiraan muuqaalada aad duubto qaar adiga xasuus gooni kugu leh oo mararka qaar marka aragtid barihi bulshada maadaama loo isticmaalayo xasuus gooni kugu soo rido way jiraan in badan ay jirta hal iyo laba midna lama dhihi karo marka waxa ka mid ah muuqaaladii ugu horeeyay marka aan ku bilaabay YouTube-ka runtii xasuus badan bay leeyihiin waayo xasuustaas waxa keenaya caqabadihii marka aan la marayay YouTube yani muuqaalada qaar oo kale ma haysan qalab fiican oo ku duubto internet-ka ku gudbinayo dhib badnaa dhibaatada marka aan marayay ay saameyn igu yeeshaan muuqaalada qaar marka way jiraan kuwa sidaas ah way tahay dabcan markii waxa hindisaysay way iska culus tahay magac aan dhihi karno runtii waa magac waqti qaatay sameyntiisii dhaqankaabo oo dhaqankii miyiga Soomaaliyeedna looga hadlay maadaama Soomaalida ay u badan tahay dad ka soo jeeda dhulka miyiga ah dhaqankoodana u badan yahay yaa ka caawiyay yaa si kugu dhiirigeliyay markii koobaad inaad YouTuber ka soo muuqato oo barihi bulshada aad isticmaasho dhanka social media anigu baa iska go'aansaday qofaan la tashtay ama qofaan ku dayday laga yaabo YouTuberada qaar xitaa inay iyagu iskarab qabtaan ama qof kale YouTuber ay u tagaan runtii aniga waxyaabaha gaarkii ah mar walba waxay tahay inaan anigu kaliya go'aansaday inaan ka soo waramo hawshan anigu kaliya aan wado weli qof YouTube-kii kama soo dhex muuqan inta badan iskuma hawlo oo waxa weeye inaan isku hawlo qof kale iyo ama inuu garab isiyo ama inuu aan tala ka qaato may jirin marka laga rabo walaalka Cumar inshaar ama ogaansho sida loo yaqaano oo isagu iskiis isku xilqaamay waayo aniga waxaan aaminsanaa inaan waxaan aniga go'aansaday bas hadafka aniga aan gaari karo aniga aan sameyn karo alxamdulillah waana sameeyay marka ma jirin qof YouTuber isgaranayno maanta oo yani ama qof kale oo dhahay kaala shaqadan qabo kaliya waan fikiray waxaan arkay shaqadan inay muhiim tahay in loo baahan yahay waa tahay ugu dambeyntii fursadan maxaa ugu baaqaysaa asxaabta ku daawato saaxiibada aad leedahay dad badan oo ku taageero gabagabadii walaalkii horta ugu horeyn aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida barnaamijkan ay uga casuuntay ama YouTube-kaaga mahad vlogs mahad nuure asxaabtida horta waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantii reer dhaqankaaba way badan yihiin dadka ay garanaya aad bay u badan yihiin aad yani waa wax aan markaan tago meel tagaba malaha 3 qof ama 4 qof oo meel joogta ugu yaraan mid kamid ah way garanayaa garashadaasuna ma aanan aniga live garanaya ma caadi garanayo laakiin barnaamijkayga uu arkay qof kasta wuxuu dhahayaa gabadhi baadiyaha joogtay dadka qaar TikTok ay igala socdaan oo igu arkeen dadka qaar Facebook bay igala socdaan qaar YouTube bay igala socdaan marka dadkaas waxa jira xitaa dad aniga si gooni aan igu xirneen oo laakiin muuqaaladeeda meel ka arka marka runtii dadka waxaan leeyahay dhamaantiin intii kuleyso gaar ay la socotay intii kaleba aad iyo aad baad mahadsantiin wali waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabta YouTube-kayga ku xiran wallahi dadka ilama mid tihiin adinka dadka YouTube-kayga ku xiran dadka ilama mid tihiin waayo meelaha kale waxa laga yaabaa dadka qaar inay muuqaaladooda dad kale soo dhigtaan inay ka daawadaan TikTok oo kale waxa laga yaabaa qof aan garanay ama sida aan waqti isii gelino soo iska socday arko laakiin qofka YouTube-kayga imaanaya sugayay igu xiran haddana marka safar gelayo waxaan dareemaa YouTube-kayga family-kayga kamid yihiin waan ku faraxsanahay inaad dad wanaagsan tihiin
si gaar ah idin salaamiya waan idinkaga mahad celinaya waan idin duceynaya qalbiga mar walba idinkaga duceeya intaas dhii lahaa sidoo kale Soomaali weyn waxa leeyahay dhaqankiina ku faana dhaqanku ma sha Allah wax aad u wanaagsan wax walbana dhaqan bay noqonayaan xijaabkan xiranahay waa dhaqankeena asturnaantu waa dhaqankeena xishoodku waa dhaqankeena wuu badan yahay marka inaan dhaqankeena ilaashano oo wixii bidiiniyana iyo wixii kalaba aan wixii Soomaali dhaqan u leedahay inaan ilaashano oo ku faano mar walba qofku uu dhaqankiisa uu ku adeegayo oo ku faanayo anigu waxaan u arkaa mar walba inuu yahay qof shakhsiyad leh ama qof yani qof go'aan leh oo noloshiisa aan yani u bedelin meel hoose marka waxbayaan aan ku dheeraan waxaan leeyahay dhaqankeena noo balana walaalahana waxaan ka codsanayaa wiilka kaamiraamaankayga weeye marna familkayga la soo dhaweeyo gaar ah loo soo dhaweeyo YouTube-kana insha Allah subscribe ha loo saaro hadda la socdo markii ugu horeysay aan ka codsado weeye aad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa aqbalaadina iyo casuumaadda aad ku sameynay dabcan wareysigan iyo daafurka YouTube-keena ay la qayb gasho sidoo kale saadaq oo kaamirada noo hayno u mahad celinaynaa walaalkeen asxaabta aad u mahadsantihiin insha Allah waxaan rajeynayaa inaad soo dhaweysiin halkaana aad maaragtay waqtiyo kooban aad nagu gaarsiideen meel sare annagana waxaan idinku soo gudbin doonaa marba wixii idin xiiso geliyo warbixino iyo vlogyo kala duwan oo deegaano kala duwan aad idinkaga keeni doono balanteenu waa inaad halkaa rukumatiin annagana aad mawduucyo kala duwan aad idinkula wadaagno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhawaada annagana na soo dhaweeyay